kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada wararka warbaahinta Kayd Media. Qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah maamulka Puntland oo ka jawaabay eed loo jeediyay Farmaajo iyo Fahad oo falkinaya fidnada Hiiraan. waxaa sidoo kale kamid ah wararkeena mid kamid ah wasiirada Rooble oo loo haysto xoolo uu lunsaday iyo waliba dagaal beeleedyo maalintii saddexaad ka socda Doolow. qodobadaas iyo kuwo kale ee wararka warbaahinta Kayd Media ku maqli doontaan. soo naqd wanaagsan markale saaxiibayaal waa axad taariikhduna ay ku beegan tahay 11 Julaay sanadka 2021 markaan haddaanu ku bilowno qodobka u horeeya warkeena. maamulka Puntland ayaa ka jawaabay eedeymo loo jeediyay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka jawaabay eed ay u jeediyeen ehelada qaar kamid ah 8 dhalinyaro ah oo maamulka Gaalkacyo uu ku xumay dil toogasho ah. gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Sanyare ayaa sheegay in ragga xukunsanayaasha ah ay 2012 Gaalkacyo tageen isla markaana ay ka shaqeynayeen kawaana ay u fureen kooxda Al-Shabaab. ehelada cabashada muujiyay ayuu ku eedeeyay inay dayaceen caruurtooda, wuxuuna mar kale ku celiyay in marnaba aysan Puntland sii doy doonin ragga lagu helay dambiyada ay dilalka ugu weyn yihiin ee qaarkood qirtay in koonfurta Gaalkacyo ay muddo dheer ku laayinayeen waxgaradka bulshada. maalmahan waxaan arkayay qolyo Muqdisho kale wiilal ayaa nagala maxkamadeynaya wiilka marka hormaad ceshitid ragga la maxkamadeynayo Al-Shabaab ayaa u furay kawaano dadka laaya ayaga ayaa yiri bastooladaha ayaga ayaa u gaday ayuu yiri Sanyare. banaanbaxyo looga soo horjeedo go'aanka Puntland ayaa maalmihii tagay ka dhacay caasimada. ehelada dhalinyarada xukunsanayaasha ah ayaana codsaday in dhalinyaradooda loo soo wareejiyo Muqdisho sida ay ogaatay Kayd Media Online. arinta qaar kamid ah 8 dhalinyarada ah ayaa gaartay meel sare waxaana loo gudbiyay ilaa xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ku metela maamulkaas iyo xafiisyo kale oo uu kamid yahay midka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. 27 bishii hore ayay ahayd markii toogasho wadareed maamulka Puntland ku fuliyay 21 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, halka Al-Shabaab dhankooda isla maalmahaas ay gobolada Bay, Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose qudha kaga jireen ku dhawaad 30 ruux oo ay ku tilmaameen basaasiin. wararka warbaahinta Kayd Media ee dhageysanaysaan markaana Farmaajo iyo Fahad ayaa fidinaya fidnada Hiiraan. odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa madaxda maamulka Hirshabelle ka dalbaday inay magdhow ka bixiyaan dadkii ku dhintay dagaalkii toddobaad ka hor ka dhacay magaalada Beledweyne kaasoo ugu yaraan 10 ruux ay ku naf waayeen in ka badan ay ku dhaawacmeen. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in dagaaladii dhawaan ka dhacay Beledweyne ay ahaayeen daandaansi qorsheysan oo ay sameynayaan Guudlaawe, Fahad Yaasiin iyo Farmaajo, waxaana loo soo dhiibay inuu fuliyo dabageed si loo weeqo rajada laga qabo dadaalada wado ra'iisul wasaare Rooble. waxgaradku waxay dalbadeen in madaxtooyada Hirshabelle ay joojiso waxa ay ugu yeereen daandaansiga laga soo abaabulay fila Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle uu joojiyo falalka amni darre ee uu maleegayo. waa siday hadalku u dhigeen. horaantii November 2020 geedi socod nabadeed oo jilicsan kana jira Hirshabelle ayaa burburay kadib markii Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin abaabuleen doorasho been abuur ah oo ka dhacday Hirshabelle. in ka badan 50 sargaal oo ka tirsan NISA ayaa laga dhigay xildhibaano cusub oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas, taasoo sababtay in doorasho musuqmaasuqa oo Cali Guudlaawe ku noqdo madaxweyne. tani waxay horseeday in Hiiraan laga yabyabo jabhad la magac baxday kacdoonka gobolka Hiiraan oo uu hogaaminayo mid kamid ah musharaxiintii xilka madaxweyne Generaal Abuukale Xaaji Warsame Xuud, kaasoo laga hor istaagay inuu si xur iyo xalaal ah kaga qayb galo doorashadii Jowhar. Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa dhawaan sheegay inay qasab tahay in madaxweynaha maamulkaas Cali Guudlaawe uu tago Beledweyne si doorashada xildhibaanada federaalka qaybta ay ku leeyihiin beelaha ku dhaqan Hiiraan ay uga dhacdo magaalada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Rooble ayaa safar ku tagi doona magaalada Beledweyne maalmaha soo socda, waxayna waxgaradku ka digayaan in la carqaladeeyo socdaalka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Beledweyne. qaybihii dhexe wararka warbaahinta Kayd Media ee dhageysanaysaan markaana mid kamid ah wasiirada Rooble ayaa loo haystaa xoolo uu lunsaday. tan iyo guuldaradii kooxda xulka qaranka kasoo gaartay dalka Cumaan waxaa soo baxay eedo musuqmaasuq oo loo jeedinayay wasiirka isboortiga Soomaaliya Xamza Saciid Xamza, kaasoo qaar kamid ah madaxda xiriirka dalka ka jira codsadeen inuu iscasilo. qaar kamid ah madaxda xiriirada ayaa Olombikada u gudbiyay warqad ay ku codsanayaan inuu si degdeg ah isu casilo wasiirka isboortiga kadib markii ay ku eedeeyeen inuu lunsaday lacag gaaraysa 1.8 milyan oo ka timid UNFPA iyo FIFA.
xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo aan ka mid ahayn xiriirada tabashada qaba iyo wasiir Xamza ayaa si isku mid ah loogu eedeeyay guuldaradii xulka qaranka kasoo gaartay Cumaan dabayaaqadii bishii hore kadib markii la ogaaday in xulka uusan kulmayn muddo ku dhow 2 sano. qaar ka mid ah ciyaartooyda xulka ugu horeeyo Axmed Saciid Casaanyo oo ah kabtanka qaranka ayaa si aan gambad lahayn u sheegay in xiriirka kubadda cagta iyo wasiir Xamza ka badiyeen kooxda qaranka mas'uulna ka yihiin guuldarooyinka. wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Xamza wuxuu xubin ka ahaa baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday 27 December 2020 wuxuuna doonayaa inuu diiradda saaro dib u doorashadiisa isagoo adeegsanaya xulad dadweyne. Xamza ayaa sidoo kale ah wasiirka labaad ee ka tirsan xukuumadda Farmaajo ee lagu eedeeyay kiis musuqmaasuq kadib wasiirkii hore ee isboortiga Khadiija Maxamed Diiriye oo lunsatay in ka badan 200,000 oo dollar oo kaash ah intii lagu guda jiray dayactirka Muqdisho Stadium. wasiir Xamza ayaa lagu xasuustaa aqbalida wareegta uu soo saaray ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre bishii May 2018 oo loogu magacaabay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka kadib markii musuqmaasuq xukuumadda hareeyay awgii xilka uga tagtay Maryan Qaasim. qaybihii dambe wararka warbaahinta Kayd Media ayaan markan isla soo gaarnay. dagaal beeleedyo ayaa maalintii saddexaad ka socda Doolow. dagaalka oo u muuqda mid sii xogeysanaya ayaa ku fiday tuulooyin dhaca webiga jinkiisa waxaana la soo warinayaa ugu yaraan 20 dhimasho ah iyo dhaawac intaa ka badan. dagaalka ayaa salka ku haya muran ka dhashay dhul beereed dhaca xuduud beenaadka waxaana guud ahaan laga barakacay ku dhawaad 10 tuulo oo dagaalku saameeyay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Cismaan ayaa gudoomiyaha degmada Doolow ee dowlad goboleedka Jubbaland ku eedeeyay inuu horeynayo colaadaha isla markaana mid ka mid ah beelaha ku tilmaamay Al-Shabaab. dadka deegaanka ayaa soo warinaya dhaawacyo fara badan in la geeyay Doolow. waxgaradka labada dhinac ayaana codsanaya in la damiyo colaadda. maalmo ka hor ayay ahayd markii gudaha Doolow ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka kadib muran soo kala dhexgalay ciidamada nabad sugidda iyo kuwa militariga. guud ahaan wararkii warbaahinta Kayd Media waa naga inta. sidaas iyo nabadgelyo.